Cidamada dowladda Soomaaliya ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta deegaanka Guricel ee gobolka Galgaduud halkaasi oo hore ugu sugnaayeen ciidamo taabacsan ahlu sunna wal jameeca. Sida wararku sheegayaan, ciidamo ka tirsan xoogga dalka gaar ahaan qaybta 12aad iyo ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya ayaa la wareegay ammaanka guud ee deegaanka Guricel kadib markii ay isaga baxeen ciidamadii ahlu sunna. Wararka ayaa sheegaya in dhammaan xarumihii ay isaga baxeen ahlu sunna ay la wareegeen ciidamada dowladda, lamana oga halka ay u baxeen ciidamadii ahlu sunna. Israsaasayn kooban ayaa xalay ka dhacday deegaanka Guricel kadib markii ay gaari ay lahaayeen ciidamada ahlu sunna uu isku dayay darawalkii waday inuu ula baxsado dhanka ciidamada dowladda. Laakiin durbadiiba waxa baacsaday ciidamo ka tirsan ahlu sunna iyadoona halkaas uu ka dhashay inuu rasaasi dhex marto ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna, iyadoona ugu dambeyntii gaarigii ay dib ula soo laabteen ciidamadii ahlu sunna. Xaaladda Guricel ayaa asaaka mid degan, iyadoona dadka deegaanku ay qabaan walwal la xiriira inay soo rogaal celiyaan ciidamada ahlu sunna oo bannaanka uga maqan degmada Guricel. Waxaa sidoo kale xusud mudan in qaybo ka mid ah magaalada Dhuusamareeb ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda, halka qaybta kale ee magaalada Dhuusamareebna ay gacanta ku hayaan ciidamada ahlu sunna wal jameeca. Shalay ayay ahayd markii ciidamada dowladda ay la wareegeen degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo ay hore ugu sugnaayeen ciidamada ahlu sunna, waxayna tallaabooyinkan ay wadaan ciidamada dowladda uu yahay mid guud ahaan wiiqaya awooddii ay deegaanada ku lahaayeen ahlu sunna wal jameeca. 2 maalin ka hor ciidamada dowladda ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanka Ceel Dheere oo u dhexeeya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guricel, iyadoona shalay ay la wareegeen degmada Matabaan, maantana waxa ay la wareegeen degmada Guricel ee gobolka Galgaduud. Cabdulqaadir Maxamed Xasan, Dalka TV, Dhuusamareeb.